dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka lagu dhibaateeyo Soomaalida iyadoo arintaasi loo sababeeyay oo lagu celceliyay in badan in Soomaalidu iyagu aysan sameeynin isdhexgal bulsho gaar ahaan bulshada ay la nool yihiin ayaa haddana waxaa jiray ganacsato Soomaaliyeed oo 10 sano la soo dhaafay caawinayay carruur fuqara ah oo badankood ay yihiin agooman kuwaasi oo sanadkan laga caawinayay inay wax bartaan isla markaana loo qeybiyay libiska isku joogga iskuulada lagu dhigto kuwaasi oo wax badan ka bedeli kara noloshooda arintani ayaa ku soo aadaysa xilli loo barordiiqayay aabaha Koonfur Afrikaanka ee xildhibaanka ah Nelson Mandela waxaana xafladaasi ka soo qayb galay ku dhawaad 1,000 qof ay ku jiraan madaxda xisbiga talada haya ee ANC waxda dadamiska dowladda magaalada Cape Town iyo qaar kamid ah madax ka socota dowladda South Africa waxayna arintani bidaaminaysaa sawir wanaagsan oo dhibada u sii adkeynaya guud ahaan ganacsiga Soomaalida South Africa waxyaabaha shal la qaybiyay ayaa waxaa ka mid ah raashin nafaqo leh cabitaano laga sameeyay qudradaha iyo weliba buugaag iyo libiska iskuulada lagu aado waxayna arintaasi dhiirigelinaysaa carruur badan oo sanadkan tagi lahayn iskuulada inay aadaan waxaan xusid mudan in Soomaalida ay fahantay muhiimadda ay leedahay in laga warqabo bulshada ay la nool yihiin taasi oo laga dhaxli karo isfaham dhanka nolosha iyo ganacsiga haddaba Mahad Cumar Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo in badan soo waday hawshani ayaa sharxaya ujeedada rasmiga ee laga leeyahay caawinta dadkan fuqarada ah ee ku nool irdaha ka soo horjeeda ganacsiga Soomaalida South Africa macnaha la socotay waqtiga dheer programka waxaan soo wadnay ilaa muddo 7 sano ah oo aan ugu talagalay maartay in Soomaalida ganacsatada ah iyo dadka ka dhex ganacsadaan ay Soomaalidu maartay maadaama dad dhibaataysan yihiin ay gacantooda gaarto ay sadaqa siiyaan oo ay maartay waxbarashadooda iyo cuntooda ka qayb qaataan marka xaqiiqiyan kana ku hor wuxuu ugu duwan yahay awalka waxaan sii jirnay cunto bustayaal raashin macnaha dhar ay xirtaan laakiin hadda waxaan go'aan ku qaadanay inaan mataqaanay aan dhisno dhinaca waxbarashada oo aan buugaagti iyo qalimaanti iyo dharkii iskuulku aadi lahaayeen iyo wixii dhan aan sanadka dambe aan maartay u diyaar garowno taasna waxa sababtay macnaha wadankan dadka waxbarashada aad bay u hoosaysaa especially dadka madowga oo degan meelaha maartay Soomaalida ka ganacsato marka intii aad qof wax si lahayd wuxuu cuno waxa ka fiicnaa maskaxaysa dhisto si uu hadhowti oo u ogaado mustaqbalkayga iyo waxbarashadeeda iyo soo jiritaankayga waxa ka qayb qaatay bulsho Soomaaliyeed oo ganacsata ah wadankan deganeed dadkan loo qaybiyay alaabahana kala duwan ayaa wajiyadooda ka muuqatay farxad iyagoo heeso ammaan u qaaday ganacsatada Soomaalida oo ku tilmaamay inay yihiin walaalahooda isla markaana aysan marnaba ogolaan doonin in la dhibaateeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed isla markaana ay difaaci doonaan xuquuqdooda محمد غموس النور دغ درجة يونيفرسال TV South Africa